Ma ogtahay in hal buug oo aad akhrido uu bedeli karo jihada noloshaada oo dhan? Cutubkan saddexaad ee Taxanaha Miraha Akhriska waxa uu ka hadlayaa dheefta akhristaha wanaagsan iyo masiirka akhrislaawaha. Qoraagu waxa uu soo qaatay 3 qof oo noloshooda akhrisku bedelay, kuwaas oo kale ah Sheekh Maxamed Naasiruddiin Al-Albani, Abraham Lincoln iyo Tokyo Sahiro. Aniguna maanta waxaan jeclaystay inaan si gaar ah idinkugu soo gudbiyo qisadii qiimaha badneed ee Sheekh Albani, qof nolol adag ka soo gudbay, balse akhris iyo adkaysi ku gaaray darajo cilmiga iyo maamuuska ugu sarreeya. Haddaba bal aan si wada jir ah u milicsano safarkiisii nolosha iyo marihii uu ka goostay akhriska. Daawadaha sharafta laho, aan kaaga sheekeeyo shakhsigan. Waa mid ka mid ah shakhsiyaadka cilmiga inooga tegay, waana mid ka mid ah shakhsiyaadka goostay miraha akhriska kadib tacab iyo dadaal badan. Maantana magaciisa ayaa adduunka inagula nool. Waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadka akhriska kaga gudbay oo ku xalliyay duruufo iyo xaalado nololeed oo ku habsaday. Shakhsigaas waa Sheekh Albani. Allah subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto sheekha. Waa dareemi kartaa booska uu kaga jiro culimadeena Islaamka iyo kaalinta uu ka geystay cilmiga diinteena suuban. Aan eegno wax yar oo ka mid ah taariikhda wax akhris ee Sheekh Albani. Sheekha waxa uu ku dhashay waddanka Albania ee qaaradda Yurub. Waxa uu ka dhashay qoys diineed oo danyar ah. Aabihiis waxa uu ahaa sheekh diinta ku adag. Markii Shuuciyiintii Albania gaareen, qoyskii danyarta waxay go'aansadeen inay dhulka Shaam u soo haajiraan. Reerkoodii waxa ay soo gaareen magaalada Dimashq, halka uu sheekhu ka bilaabay waxbarashadiisa. Hase ahaatee, aabihii ayaa go'aansaday inuu dugsiga ka saaro duruufo jiray awgood. Sidaa awgeed, guriga ayaa uu joogi jiray, halka ciyaalka faciis ah dugsiyada subaxdii u kalahaan. Hase ahaatee, waxaa aado u ahayd akhrinta kutubta yaryar oo uu aabihii kaga dayan jiray had iyo goor. Imaamku markii uu 20 jirsaday ayaa waxa uu bilaabay inuu xiiseeyo oo akhriyo cilmiga xadiista. Xilligaa waxa uu bilaabay imaamku inuu aado maktabadaha kutubta lagu kaydiyo si uu wax uga akhriyo kutubta maadaama uusan iibsan karin, halkaas oo si maalinle uga heli jiray cilmiga ku keydsan kutubta. Sannado kadib, imaamku waxa uu noqday qof xaas iyo carruur leh. Qoyskiisa uu ka dhasheen waxay ahaayeen danyar duruufo ku gadaaman yihiin. Xirfad iyo aqoon shaqo waxa uu lahaa farsamada saacadaha oo uu aabihii ka bartay. Waxa uu furtay dukaan yar oo uu saacadaha ku farsameeyo oo uu quutulyoomka reerka ka raadiyo. Subaxdii baa uu furi jiray, gudaha baana uu fariisan jiray, waxbuuna akhrisan jiray. Imaamku Allah u naxariistay waxa uu aaminsanaa shaqada kaliya ee reerkiisa, naftiisa iyo ummaddiisa uu ku anfici karo inay tahay wax akhriska. Wayna dhacday arrintii uu ku haminayay. Waxaa timaaday xilli haddiiba xadiis laga sheegayo rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam la yiraahdo Sheekh Albani ma saxiixay. Waxaa timaaday xilli muslimiinta dhan u daba fariistaan cilmiga xadiista. Xadiiska aanu saxiixin uu noqdo mid aan lagu dhiiran. Sidoo kale, ninkii dukaanka jiingada ka samaysan wax ku akhrin jiray waxa uu noqday keedka iyo isha laga dhaansado cilmiga diinta Islaamka. Waxa uu waxbaray oo uu macallin u noqday arday aan tiro lagu soo koobi karin oo uu diinta Islaamka baray. Waxa uu gacantiisa ku qoray ku dhowaad 400 oo kitaab oo ah kutubta ugu muhiimsan. Waxa uu cilmigiisa ku difaacay diinta Islaamka. Waxa uu noqday bartilmaameedka cadowga Islaamka. Imaamku akhriskiisii waxa uu ku gurtay miraha intaan la eg. Sheekh Albani raximahullah, guusha iyo halka intaan la eg waxa uu ku gaaray akhris. Waxaa ku hareeraysnaa duruufaha maanta inagu hareeraysan kuwo ka badan. Kama bixin jaamacad kuweena ka qaalisan. Ma haysan waqti keena ka badan. Waxaa hubanti ah in badankeen aan ka firaaqo iyo jaanis badan nahay. Su'aasha aan ku weydiinayo waxay tahay, daawada, ma aynaan akhriska ku gaari karin guulo intaan la eg inagana? Saaxiib, sheekada Sheekh Albani waxayna baraysaa hal run oo cad: inaan u baahnayn maal, waqti ama jaamacad qaali ah si aan u noqono dad cilmiga horumarka ku gaara. Waxaan u baahanahay waa niyad, akhris iyo adkaysi. Qofka maanta buug furaa, beri waxa uu furaa albaab cusub oo nolol ah. Marka aan maanta akhriska qaadano, waxaan qaadanaa dariiq ay hore u mareen kuwii guulaystay. Isweydii, maxaan aniguna ka goosan karaa miraha akhriska maanta? Ilaa cutubka xiga ee miraha akhriska, ha iloobin inaad akhriska caado u beddesho, waayo caadadaas yar ayaa noqon karta sababta isbeddel weyn oo noloshaada ku yimaada. Waa hagaag saaxiibayaal, muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. Ilaa halkan haddii aad soo gaartay waad ku mahadsan tahay. Fadlan muuqaalka like noo saar, sidoo kale nagu soo biir. Soo koobista buuggan miraha akhriska waxaa gacan weyn ka geysta walaalkay Cabbaas Maxamed Iidow. ilaa iyo cutubkeena xiga. Waa anigoo Yuusuf Isxaaq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.